duca qabayaal kusoo dhawaada Somaliland Indigest waxaa soo dhacay war ka soo baxay xubin ka tirsan baarlamaanka Ingiriiska oo ku saabsan Somaliland. Andrew Mitchell xaafadda Sutton ayaa laga soo doortay. Andrew Mitchell ayaa taageerayaasha Somaliland ay ku leedahay beesha caalamka malaaka ugu weyn amaba dabcan mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn. Andrew Mitchell ayaa ilaa iyo 2001 wuxuu ka tirsanaa baarlamaanka Ingiriiska. wuxuu ka tirsanaa xisbiga Conservative-ka oo ah xisbiga hadda talada haya. waa nin ka agdhow ra'iisul wasaare Rishi Sunak oo ah ra'iisul wasaaraha hadda talada haya. hore wuxuu u ahaa xaafad kale ayuu xildhibaan u ahaa oo la dhaho Gedling oo ka tirsan debadaha London. xaafadaas wuxuu xildhibaan u ahaa 10 sanadood iyadana 1987 ilaa 1990. qadiyadda Somaliland wuxuu ku soo biiray 2003 waqtigaas oo uu in badan aad uga hadlay اعتراف raadintii Somaliland oo waqtigaa iyaduna socotay. waxaa hadda uu shaaciyay qoraal ku saabsan halka dhaqdhaqaaqii u dambeeyay ee uu la yeeshay ama xiriirkii u dambeeyay ee uu la yeeshay xukuumadda Somaliland. intaanan u gudagelin bal qoraalkiisa iyo xogta uu xambaarsan yahay, waxaan jeclaan lahaa inaan idin xaqiijiyo horta ninkani ma aha nin cadow ku ah qarannimada Somaliland. waa saaxiib Somaliland, waa nin Somaliland taageersan. su-aasha markaa imanaysa waxay tahay Somaliland xukuumadda hadda talada haysa ma iyada ayaa saaxiibadii Somaliland colaysatay oo nacaybsatay oo iska fogeysay? bal qoraalkiisa iyo qaabka uu u dhigay ayaan jecelahay inaan idinla wadaago. wuxuu yidhi, I spoke to Somaliland President Musa Bihi and raised concerns of a conflict in Lasanote and delays to elections. The economic potential in Somaliland is huge, but stability is fundamental to success. An immediate ceasefire is needed and an electoral roadmap needs to be published. waxaan la hadlay buu yidhi madaxweyne Somaliland Bihi oo aan u taabtay walaaca colaadda Laascaanood iyo dib u dhaca doorashada. awoodda dhaqaale ee Somaliland waa mid aad u weyn buu yidhi, amaba potentialka soo koristu ka hadlaya. soo korista dhaqaale ee Somaliland waa mid aad u weyn, laakiin xasiloonidu waa asaaska guusha. xabad joojin degdeg ah ayaa loo baahan yahay iyo khariirad doorasho ayaa loo baahan yahay in la daabaco. waxaa in la dhigo dariiq doorashada lagu gela ayuu yidhi. diidmada iyo madaxadeega ku saabsan in doorashada uu shaaciyo madaxweynuhu, xitaa nimankan saaxiibada Somaliland ka hadli maayaan in uu doorasho qabto. waxay ka hadlayaan inuu sheego xilliga la qabanayo doorashada, la qabanayo qorshaha doorashooyinka inuu sheego. kaliya intaasay ka rabaan. markuu intaa diido waxa ay u arkayaan markaa in uu ka beeray arrinkii democracy-ga. markaa ninkani oo Andrew Mitchell wuxuu yahay saaxiib Somalilandera, col kuma aha Somaliland, qaran dumis ma aha, laakiin wuxuu la yaaban yahay madaxadeega arrintan doorashada ayuu walaac weyn ka qabaa. arrintan doorashada haddii uu madaxweynuhu kusii adkeeyo uu kusii adkaysto in aan waxbaba ka dherindhirin ama waxba ka shaacin waxbaba ka qabanna, runtii waxa badan ayaa qaranka kaga xumaanaya. waxaan jeclahay inaan idin taabto aniga idinla hadlayo laftigaygu markan xogtan idinla wadaagayo daawade. maaha arrinku in aan Somaliland aan nacayb u sido. Somalilander waanahay, aniga ah Somalilander, waa qarankaygii. ma fahantay? marka ha ka dhigin
qofku markuu xukuumadda iyo khaladaadkeeda iyo waxa somalilan dhibaato u keenaya uu ka hadlo ha ka dhigin in uu somalilan uu ku duulayo. somalilan anagu saan ugu duuli karaa, somalilan waanuna, laakiin beeshii caalamku waxaan ay aragtay baanu aragnay. haddii tan lagu sii wadana dhibaatooyin waaweyn ayaa somalilan u imanaya. markaa si aan dhibaatooyinkaasi u imanin ayaa nagu kaliftay in aanu ka hadalno. kan hadda ninkan xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka ingiriiska waa xubin keliya, laakiin haddii arrintan sii socoto dowlado dhan ayaa arrintan ku dhawaaqay. already maraykanku wuu sheegayba, wuu shaaciyey qoraal ku saabsan, baanu idinla wadaagna hore, ku saabsan in ay cunaqabato xitaa soo rogayaan. wax kale maaha, waxay ka rabaan in madaxweynaha iyo xukuumaddiisu ay soo dejiyaan maxay road map, qorsho unkeen bay leeyihin. xitaa doorasho qabo ma laha, xitaa doorasho waxbaba maaragtay, keliya waxay leeyihiin war bal qorshihii, war bal waxaad ka dabacsan tahay sheeg baa la leeyahay. markaas waxaan jeclahay xogtayana somaliland digest iyo dhinaca dabeesha u dhacaysaba inaad fahantaan baan rajaynaynaa. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. xogtaay isaan jeclayn inaan barnaamijkan aanu ku soo koobno. Andrew Mitchell oo ka tirsan baarlamaanka ingiriiska, horena uu ahaa saaxiib somalilan, oo hadda walaac weyn ka qaba kadib xiriir uu la sameeyey madaxweynaha muuse biixi cabdi.